hadda sanadkan مثلا 2017 abaaro xoog leh ayaa ka jiray Soomaaliya dad badan ayaa ka soo qaxay oo beerley iyo xoololey ahaa deegaanada ay deganaan jireen ay ka soo tageen oo meelaha ay wax ka heli karaan ay soo aadeen abaar waa jiri jirtay waa jiraysaa waa jiri doontaa marka wax cusub ma nagu ah laakiin waxa muhiim ah in laga hadlo maxaa laga qaban karaa abaarahaas see loogu hortagi karaa see loogu diyaar garoobi karaa laakiin badanaa waxaa laga hadlaa arkayna markii abaaro ay dhacaan oo dhibta ay soo gaarto oo xoolihii ay baaba'aan dadkii ay ku xigsadaan markaas ayaa qayladhaan la sameeyaa oo adduunka loo qayladhaamaa the simple way oo macnaa loogu hortagi karo xilliyo oo abaareed waa jiraan waa dhici doonaan xilliyo oo aaranna waa jiraan marka xilliyada aaranka ah in si fiican loo beerto beerihii in si fiican loo beerto iyo in la isticmaalo teknolojiyaal oo fiican oo xataa markii abaar ay jirto ay wax ku dhalin karaan maxaa ka mid oo kale waxaa ka mid noqon karo مثلا in yani la helo varieties ama abuuro abaaraha u adkaysan karo in la isticmaalo xirfado beeraha oo loo isticmaali karo sida drip irrigation oo kale irrigation oo dhibacyada leh oo aan biyo badan la isticmaalaynin conservation agriculture wax la hayaa jiro oo yani minimum tillage la isticmaalayo macnaha waxa waaye dhulka iyadoo aad loo qodaynin aan evaporation ama biyo bax badan aan loo sameeynin in conservation loo sameeyo wixii biyo dhulka ku jiro wax soo saarkina la kordhiyo wax soo saarka laba sib waa lagu kordhin karaa ayadoo oo dhulka yar ah haysatid inaad 3 jibaar 4 jibaar wixii ku soo bixi jira inaad ka soo saaratid adoo teknolojiya fiican isticmaalayo ama dhul ka badan baa jiro hadda oo macnaha Soomaaliya oo la beeran karo la fidiyo dhulkii la beeran lahaa in aad loo fidiyo si at least mataqaanaa dhul badan loo helo wax soo saar badan loo helo storage fiican in la sameeyo oo wixii la kaydin karo at least sanooyin in la kaydin karo ila adduunka oo waa samaystaan yani abaara inay dhacaan waa ku talagalaan storage badan ay samaystaan oo wixii ay ku kaydsadaan markii abaara ay dhacdo mataqaanaa in ay kaga baxaan sidaas oo kale calafka xoolaha ilaan xoolaha marka hore bilowda inay mataqaanaa ay baaba'aan ay dhintaan massive scale loo sameeyo scale weyn oo lagu beero iyadoo teknolojiya casri loo isticmaalayo xoolihii calafkoodana in la kaydiyo waxa kale ku dheer yani source of drought waxa waa biyo la'aanta waa marka biyaha ceelal in la qodo waa qasab waa laga maarmaan waro oo mataqaanaa xoolaha ay ku waraabaan in la diyaarsado waa laga maarmaan marka intaas waa wax yani aan u baahnayn fikir weyn iyo wax weyn aan u baahnayn waa wax oo la yaqaano technology-gan available ah oo la gaari karo